waa hagaaga madaxweynaha dowladda koonfur Afrika ayaa waraaqaha aqoonsiga maanta ka gudoomay danjirayaal kala duwan oo ku jira danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkaasi koonfur Afrika u fariisanaya wariyahana Cabdiqaadir Axad Dhaqane ayaa warkaasi ka soo diray halkaasi. madaxweynaha dalka koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ka gudoomay warqadoodii aqoonsi ee safiirnimo danjirayaal uu ka mid yahay danjiraha Soomaaliya ay dhawaan u soo magacaawday dalkan koonfur Afrika mudane Maxamed Cali Mire Nabadoon dalalka Soomaaliya USA Falastiin Qatar UK iyo dalal kale ayuu madaxweynaha ka gudoomay warqadoodii aqoonsi ee safiirnimo kuwa oo bedelay safiiro hore danjire Maxamed Cali Mire Nabadoon oo ah danjiraha cusub ee Soomaaliya dhawaan u soo magacaawday dalkan koonfur Afrika iyo qonsulka ahna ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalkan mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa ugu horeyntii salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka dalka koonfur Afrika danjire Nabadoon ayaa intaa kadib warqadihiisii aqoonsi ee safiirnimo u gudbiyay madaxweynaha dalkan waxa uu salaan iyo fariin uu ka siday madaxweynaha Soomaaliya la wadaagay madaxweyne Cyril Ramaphosa. The year of 2020 will be the year of Somalia and South Africa. Under your leadership we expected that we will get whatever. sanadka 2020 waxa uu noqonayaa sanadka Soomaaliya iyo South Africa waxaana filayaa in hogaamintaadi ay noqon doonto mid muhiim ah iyo ogolow inaad iga gudoonto salaan diiran oo aan kaaga sido madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeyntii iyo ogolow inaan ku soo gudbiyo magacaabisteedii waxaana filayaa inaad iga aqbali doontid mudane madaxweyne mahadsanid safiirka xigeenka ahna qonsulka koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan koonfur Afrika mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa saxaafadda la hadlay 12 dowladood warqadaha u gudbiyay madaxweynaha South Africa waxaa kamid ahaa safiirka dowladda federaalka Soomaaliya u fadhin doona Southern Africa Ambassador Maxamed Cali Mire Nabadoon runtii kulanku wuxuu ahaa kulan aad u qurux badan safiirku waxa uu u sheegay madaxweynaha sanadda 2020 inay tahay sanadkii Soomaaliya iyo South Africa oo runtii aad u soo dhaweeyay aadna ugu farxay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala ambassadorku maadaama uu yahay khabiir hore oo muddo ku soo jiray diblomaasiyadda karti badan anigu aan ku tuhmayo aqoon hore aan soo lahayn waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu Ilaahay xilkiisa u fududeeyo annaguna garbihiisa aan noqono in dawladda Soomaaliyana danaha ay ka leedahay caalamka meel loogu gado halkan ay noqoto anigu waan ka soo horeeyay dhowr jeer oo aan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda waaxda international relations waxay ii sheegeen yani aad ammaan badan bay ka sheegeen oo lahaayeen xaguu ku dambeeyaa qonsulkiini iyo safiirku xigeenkii halkan idin joogay wuxuu ahaa nin aad yani wax badan ugu qabtay arrimaha danjiraha cusub ayaa laga filayaa inuu xiriirka labada dal ee koonfur Afrika iyo Soomaaliya si laba jibaaro isagoo sidoo kale laga filayo inuu wax ka qabto dhibaatooyinka Soomaalida halkan Cabdiqaadir Axad Dhaqane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Pretoria.